السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa igu soo boqday masjid al-Qur'an wa Sunnah an Islamic Society of Ohio oo ku yaala magaalada Columbus address ku soo yahay 2271 Morris Road. saad u jeedaan zoomka oo u jeedaan sheekhu 2271 Morris Road Columbus Ohio wadadii Morris Road wataas saad u jeedaan masaajidkuna kalaab ayuu ahaan jiray marka meeshaan dib fara badan ayaan u soo maray ummadda Soomaaliyeed ee igu taageertay ee dhabar adeegtayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad ka siiyo muddo 10 sano ayaan ku rafaadsanahay meesha tan ninkii dacweeyay gaalka ahaa waan ka guuleystay 6 sano 7 sano markaan maxkamadda ku jirnay dad Soomaaliyeed ayaan soo dhaweystay oo walaalahay ah oo ehelkay ah oo dadka oo aan aaminay oo arkaalaya iimaada ila soo darsa qaybtaas ku intifaaca ganacsiga ah intaana masaajidka yeesho meeshaas khamradii baan ka saaray aad u jeedaan 200 oo Soomaaliya ayaa gali jirtay Ilaahay dartii baan uga saaray 20 kun baa iga baxday ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meesha tan oo maaragtay aniga la iga quustay 4 sano 5 sano lacag la igu baryayo maantana $3 million la igu baryayo anna aan diiday aan leeyahay the masjid is not for sale hantidayduna for sale ma ahan meesha tan waxaan rabaa meel ummadda Soomaaliyeed كقرني إن شاء الله تعالى أي كل انتفاعه كل بانته توحيدك يا نورك إسلام كان لغفى فيه أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى النقطة أو توحيدك لغفى فيه هم يجوا ما الدنيا وضيق أصبارها هي أنت عني كري عني أنت عبي كري عبي قدان قلينا أنا كنا مرك haddana gudaha ayaan galaynaa bal soo gala khiyaarta sharafta lahay telefoonka naga damiya hay ka qaban igu soo celi walaalayaal soo gala nal waa shidaynaa insha Allah iftiinkaan furaynaa waa kuwan walaalayaal meesha aad u jeedaan waa kana walaalayaal meesha weysada waa tana meeshan kala bay ahaan jirtay Soomaalidii ku macsiyeysan jirtay oo ku dhiikan jirtay oo khamrada ku cab jirtay ayaa Ilaahay qadaray inay ku toobad keenaan oo ay ku tukadaan halkan ku soo qabo meesha weysada waa tana saad u jeedaan musqulihi waa kuwana oo dhismo ku socdo waxaan ka codsanayaa marka walaalkay Sheekh Xasan inuu fariintan ummadda Soomaaliyeed uu gaarsiiyo walaalayaal Soomaaliyay meel kasto aad joogtaan caalamka masaajidkan waa fudud yahay halayla dhiso waxaan ka codsanayaa reer culimada Minneapolis Seattle Boston meel kasta Columbus Australia Europe walaalayaal masaajidkan ila dhisa walaalayaal Ilaahay ayaa qadaray anigoo aan ku fakirin dhulka kan Ilaahay inuu na dhaxal siiyay وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها مشان هنتدا تنادو جدان مقعيga ayaa ku qoran inaan anigu dhulkan iska leeyahay hantidan aan leeyahay saasoy tahay walaalayaal waxaan ka dhabeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu jecel yahay ummadda muslimiintu meelay ku intifaacda ka abay meeshaan insha Allah noqonaysa waan diiday inaan gado it's not for sale maxkamad baan ku jiraa hadeertaan 4 sanaan ku jiraa dulmi iyo cudwaan baan hadda masaajidkan ma biyo cabba Ilaahay baan ku dhaarshay meeshan ma biyo lagu cabba hadii bil walba $900 meeshan bi xiran oo burbursan ka bixi meeshan ma biyo cabta walaalow meeshan soo burbursan $900 bixi sanadkii waxa lagu leeyahay hadii ay ku idmaayo 10 kun 5 sano waxa lagu leeyahay 60 kun war waxaas waa dulmi waana xaraan Soomaaliya dalkiinimad soo burburiseen Ilaahay ka baqa waa idin aaminay waa in soo dhaweeyay waxaan idin manager noo noqda waxaan idin bangiga noo haya waxaan idin hadii ay ku idmaayo addresska idinku haya contractor idinka qoray idinkuma qabsan war Ilaahay ka baqa cuqubadiisa ka baqa war dulmiga waa lagu halaagsamaa war Soomaaliya dulmiga iska daayay war Ilaahay ka baqa war masaajidka u naxariista war ummadda u naxariista war odayaasha habaarkooda iska jira ma sha Allah
imise ka koobantaa meesha kan haddaan ku jirno waa masjid walaalo waa meesha tahay masaajidku waa qaybta tan laakiin saan isla leenahay xataa qaybta weyn oo xagga ah oo ilaa almost 5000 oo booqan karnaa qaybta kale ma arki karnaa furiiniya waa ka soo tagay oo furiya ka soo tagay nacam qaybtaas marka hadda qaybtan waa masjidkii xagga laga soo galaa masjidka halkaas laga soo galaa qaybtaas laftigeeduna haddii ilaahay ku idmaa iyaduna waa insha allahu tacaala waa madrasa ma leeyahay madrasa waxaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay dhowr boqol oo arday baan halkan ku han jiray ilaa 300 iyo dheeraad arday baan ku han jiray halkan kan laakiin hatta meel loo habeeyay ma jirtaa madrasa ma soo xartaa qaybta lagu tukado yani qaybta saan rajaynayna qaybta tan hadeertaan laga baxay oo ay ka baxeen xawaaladu laftigeeda iyo qaybta kaleba aniga hamigaygu inaan madaaris iyo islaam iyo diin aan ka dhiga ayaan rajaynaya allahumma wixii kale oo soo kordha waa baab kale laakiin 90% marka ma jirtaa meelo ganacsi aad u qorsheynayso qaybo ganacsi walaalow haddii aan baarkinkaas gacanta ku dhigi lahaa qaybta baarkinka aan eegno baarkinkaasaan damcay inaan gato on masaajidka iyo dhulka aan rabnay inaan gadno laakiin adigu khiyaano qaran baa dhacday qaybtan waa baarkinka dhulkaas baarkin waa qaybta laakiin dhulkaasaan rabay inaan gado asagane ummadii Soomaaliyeed waa dhulkaas ma ka tirsan inaan gadaan rabay si aan qaybtaas weyn aan uga dhigay masjid haddii ay kudmay qaybtaan oo dhan qaybtaan xagga oo weyn aan ku soo qabanno si aan masjid uga dhigo ayaan rabay qaybta inaan marka qaybtaan aan hadda u soconno halkaan ka bilaabay haddii ay kud moolka lagu leeyahay halkaan waa qaybtaan oo dhan laakiin qaybtaan qayb kamid ah halkaan daabshiil baa deganaa jirtay laakiin qaybtaan ilaa 21 qol baa la ogolaa laakiin saad u jeedaan qaybtaan waa isleedahay aniga hamigay wuxuu ahaa dhulkaan inta gado oo gaalkii waa la heshiiyey markii waliba 40 kun baa waagi la yiri dhowr sano ka hor laakiin aduu Soomaalidu waa iskhiyaantaa waa la iga hoos baxay marka la xawla wala quwwata illa billah haddaan marka masaajid rabo inaan ka dhigo hadda baarkin baan u baahanayaa kun qof haddii la kudmay marka wixii kale oo suurtagala ama madrasa ummadda Soomaaliyeedna quraanka ku barato diintana ku barato ama wixii kale oo suurtagala haddii taasuna ay suurtagali weydo fattaqullaha ish mastada'tum laakiin aniga niyadaydu waa nusratul islaam aan ku qabanno marka buildingka wuxuu ku egyahay qaybta gaariga cadshishadiisa nacam wuxuu kale ku egyahay ka bilaabmaya qaybtan geeska marka adigu hadda waxaad manage gareysaan u maleynayaa laga soo bilaabo buildingkaas halka ka soo bilow burtaas taagan burtaas taagan ee madow xagga soo istaag burta madow soo istaag darjid meesha qashinka meesha ka soo istaag saar noo soo qaban marka ma wala arkay dhib male burtaas ka soo bilaab ilaa iyo halkan Soomaa nacam ilaa iyo dhamaadka waa almost 56% of the building marka waxa weeye dulmiga hal la daayo ilaahay laga baqo iimaan alla urbuuxsha eber Soomaali kala halkaas kula dukaamo Soomaa maqaaxi waxa Soomaali kala kula walaalow gacliyow ayagana kiray ugu jiraan mise kiray ugu jiraan laakiin dadkii aan soo dhaweeyay Soomaalida ahaa aniga meeshaas haddii laakiin dad Soomaaliyeed baan war ku intifaaco soo dago daris la noqdo oo wax cuno wax cabbo ku dheefo dadkii baba anigii afgan gabinay macnaha dadka ka kireysay kuwii aan keenay ee Soomaalida war meeshaas ku intifaac yaani inqilaab maxkamad baa ku jira hadda marka dulmiga inta واتقوا الظلم ور إلهي كبقى والظلم يسكداية الظلم ظلمات والظلم حرام وي وحب كل يباني ميس ورسر لك تاجو الله قد انتو إسلامي عروق هذا حرام إلهي كوجو عذابه أيجينا إلهي كو عذابه حب كيل ميس هلا إلهي لا كبقى أنا يواك أديوري واعر رئيستي رفاض لاير ساعدني صدح بقولة مين قبع كرا شن سنة رفاض ور إلهي كبقى وعن كعد سنة ومد الصومالي ولا لياله ويجر جارة إلهي درت يوجر جارة ملك استوى تشوكتان إلهي درت وحن سؤال قدام مثلا هو فيديو كل ضد بينهم الصوماليين الدعوان نعم ما حد قعد سنة ذكاء الشيخ حسن جزاك الله خير أدقي والله مسلمين تبارته وكم حسنت إلى تصوب بغطايا ومدة مسلمين حال كل أوغانيس جزاك الله خير وأكون فرح السنة قبل وأن كقلنا جودها إن مش هرت أن استاجنا أحسن نقوم سعيد كورتاجن مرك ولا لو واحد عطسنا يا واحد كستو إلهي تعلي رالنا كي هي ودو تشد حتى مارت نرتكب بحضية رفات كي سجل صار هذا سجلي لا مش هرت مش إلهي يا ربي halkaan soo istaaga horay inuu halku soo waxaan u joodaa suuqa xalaal market
Somali entertainment maxay kaliya waxyaabaha noo sharax walba walaalow meeshan dad Soomaaliyeed baan keenay sad u jeedid aan ku intifaaca anigii bay nafti ii keen 14 bay ka helaan 170 bay sanadkii ka sameeyaan halkan oo u jeedaa dabcasar sheekh soo dhaweey ku qabo waxa ku dhagan xasbunallahu wa ni'mal wakiil dabcasar waa kambaniga sartan iska leh hadii ilaahay ku idmaayo waxaas aad u jeedaan ayaga iska leh raggii halka aan keenay oo Soomaaliyeed baa aniga inqilaab igu hay 14 bay ka sameeyaan 170 bay ka sameeyaan anigana sifir hal shilin igama soo galo meesha khamray ahayd qaybta daabshil la tus daabshil waa kuwan walaal way ka baxeen ilaahay meel ka khayr badan ha siiyo meesha laftigeeda dugsi quraan inaan ka dhigo ayaan jeclahay marka maxaa ka codsanaysaa soo gabagabeynayna dadka Soomaaliyeed daawanaya waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed halkan ku qabo ama wal arka waxaan ka codsan ummadda Soomaaliyeed wixii ilaahay jecel yahay war walaalayaal ilaahay wuxuu watacaawanu cala albirri wattaqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أهلية لا إله إلا الله محمد رسول الله أهلية كلمة التوحيد أهلية شاهد كان إلى النساء ولا ليالو علماء الصوماليات عامة الصوماليات ملك استأجرتان صومالي وين أنا قضيب أنا هاي وأكد دالي وارفاضي هذا هدف كي الدنيا ما مال ما كعور ما هدان ربه حياة بدن أو عن سميك هدر تام على جبر يا العج صدق من ما صنته جزاك الله خير الله يسيو شيخ حسن أدم وفرح سنة أسرع سياتل وصوب غني إن شاء الله أبصل والكوبة نويمو ما شاء الله جزاك الله خير أدي بود مسد السلام عليكم